بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام Soomaaliya suulbu maqalkayga iyo muuqaalkayga soo gaaray anigoo UK channelka naga daawanaysan waa King UK official yo maaniga ismo insha Allah muuqaalkeeni maanta wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay ina soo soo fariisto wada hadalna aad ugu xiis inta ugu badan meeshaan u imaaday vlog duub waxa sameynaysaa adoo istaagsan balkoon wax ku duub waxa ka bixi waay marka anyway insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc muhiim ah ee Soomaalida dhan wada xiiseynayso mowduucaas wuxuu yahay waxa la dhahay ka soo hadal maciishada wadanka aad tagtay inta ugu badan dadka waxay u soo codsanayaan wax kale ma ahan Uganda ama Kampala waxa ka bilaaban raba barnaamijkii 5 group ah Uganda waxa ka bilaaban raba barnaamijkii 5 group ah barnaamijkaas oo ay America dhawaan furtay barnaamijkaas sidiisa wuxuu ka socon jiray Canada hadda America furtay sida awgeeda Uganda iyo wuxuu ka soconayaa inta ugu badan laakiin Soomaalida Uganda inay imaato barnaamijyada meesha ay ka xalistaan kaarka qaxootiga ay ka qaataan saas darteed ay u xiiseynayaan insha Allah ana saasan uga hadli doona barnaamijka okay Uganda maciishada aad u jaban tahay maciishadeeda markii laga hadlaayo meel aad ugu jaban tahay meelne aad ugu kacsan tahay Allah musta'an waxyaalaha aan arkay waxa kamid ah Uganda tusaale qofkii hadii bishii loo soo diro $150 Uganda $150 hadii loo soo diro oo nafsidiisa ah way anfacay laakiin hadii kira lagu daro nafsidiisa lagu daro waxba kuma tarayso xaqiiq waay sababtoo ah Uganda guryaha kirada Uganda qolka iyo fadhiga iyo musqushiisa qol iyo fadhi waaye $150 meelahaas waaye inkastoo hadda Soomaalida inta ugu badan ay Uganda timaaday sida awgeedna aad loo dalacsiiyay qiimaha dalka Uganda guryaha aad loo dalacsiiyay sababtoo ah Soomaali badan ayaa ku soo daabushay ama ku soo qulqushay Uganda sida awgeeda bilahan ugu dambeeyay 3 months bila 3 bil ugu dambeysay aad iyo aad qiimahooda u kacsan yihiin guryaha saamaqlay 2 qol iyo fadhi group musqul oo iska dhaf musqushu ma dareeno 2 qol iyo fadhi saamaqlay waa lacag $250 ilaa $300 waa qol kaligiisii iyo musqushiis fadhi aan lahayn lacagtiisa saamaqlay wiil wuxuu dhahay horta meesha degantahay ku xiran tahay Soomaalida inta ugu badan waxay degtaa meel Kisenya la dhaho Kisenya Soomaalida anaga meesha deganahay meesha waay Kisenya kale hadda saanay noqotay jam ciriiri waay lacagaheedana aad iyo aad u culus tahay Kisenya daarabta inaad guri ka heshid aduu qof ku raadinayo I hope inaad ka heli doontid ama daa ka weysid waa ka inkastoo aan abaaya isla iimaanay Kisenya guri looga waay meel oo maxay ahayd doortay kabuli mahalla asbaa qaar waliba kala baran meelahaas guri loogu helay oo Kisenyada ka dambeeyso waa 2 qol iyo musqul iyo waxaas ay ahayd $300 ilaa meelahaas ay ahayd inta loogu kireeyay marka Kisenyada hadda qolka iyo fadhiga waa $150 $180 sida ku heshid waay haddadaan la joogo $180 $150 waay marka maciishada dhan kale nolosha oo taala ahaan magaalada kale caadi waay aan hadda tusaale maqaaxi Soomaali ay gashid soo cuntid bariis iyo hilib iyo waxa isku soo cuntid tusaale saxan bariis hilib waxba soo cuntay waxa laga yaabaa in lacagtaas $10 ee dhamaad laakiin daraad maqaaxiga galnay bariis cunne hilib cunne cabitaan shaah wallahi lacag $5 camal naga la qaaday meelaha qaar maciishadooda ka jaban tahay meelaha qaar aad ay qaali u tahay tusaale hadda caaga caafiga kuwan oo kale this caagan caafiga weeynka 1 litir iyo barka ah Soomaali lacagtiisa $14 ka jooga waa $9 meesha wuxuu ka joogaa Allah musta'an 1 shilin oo wadankan lacagtooda waxay u dhigmataa tan hadda fiiri I hope ina arkaysaan lacagta wadankan tan waay hadda tusaale 2,000 waay 2,000 oo Uganda waay marka Uganda tan hadda 2,000 marka qaadatid waxa soo helay 2 xab caag oo kan caaga caafiga biyaha caaga mujeedin 2 xab oo kan ahaa soo helaysa marka lacagtan 2,000 aan qaadatid marka lacagtan hadda warqad waay kun ay leedahay 2,000 3,000 malaha laakiin 1,000 2,000 4,000 adi lacag 5,000 sax amal ay leeyihiin marka saas waay lacag wixii kun ka yarna shilimaad ay leeyihiin oo 500 iyo 1,000 shilimaad oo jira marka wadanka maciishadiisa saas waay waxa adoo wadada iska socdo street food oo cananaas la jarjaray waxa arkaysaa qaaro xeelahaas iska cuni kartaa lacag yar haysatid marka qof bini aadanka ah shaqsi haduu yahay guri family haduu ku nool yahay nolosha Uganda waxba kama dhimayso hadii family joogtid oo wax ku karinayaan normal noloshaas wixii kula noqonaysaa nolol caadi ah wax ku noolaan kartaa because family-ka wax ku karinayaan adoo iska iimaanay waa cune qofka asianti $150 caadi u kaafisa laakiin hadii aad dhahdid guri kiraan waa laga rabaa shaqana male barnaamijka shaqadan waa ka iloow inaan ka hadlo doona shaqadan ayadana
oo ma haysti guri oo family ma joogi like noocaasna waa rabaa marka dhahayd aad ay u badan tahay Uganda shaqada Uganda markii ka hadalno waxa jirta meelo badan oo laga shaqeeyo inkastoo Soomaalida xamar joogto oo dhalinyarada bajaaj ay ka shaqeysa inta ay ku yar tahay marka shaqada waxay noqonay dukaamo badan oo Soomaali ay leeyihiin jiro in dukaankaas aad shaqo ka raasatid oo ka shaqeysid hadii ay gacanta ku fadhiyo ama jeebka uu ku fadhiyaan aad meel meherada ay aaraatid oo meel elektarooniga ka fuuratid kan caadi ah ka fuuratid waxyaalahaasna aad u soconaysa haduu jeebka ku fadhin dhalinyaro caadi aad tahay arday aad tahay meel aad ka shaqeysta u baahan tahay waxa jira maqaaxi ay ka shaqeeyaan inta ugu badan Soomaalida maqaaxidaas sida shaqo ka raasatid shaqo aad ka heshid normal aad wax qoray aad wax ka noqoto laakiin inta ugu badan Soomaalida meeshan Soomaaliya dukaamo wada leh meesha ka shaqeeyaan shaqooyinkeeda ma badna Kampala fursada hada aad jeebka uu ku fadhiyo tada shaqo waa helaysa laakiin dhalinyaro iska caadi waxbarasho u soo baxay hada tahay in lagu soo biilo ee noqonay marka shaqooyinka noocyadaas u kala baxaan marka wadankan saas waa fursado shaqo oo aad u fara badan ma laha cimiladiisa hore uga hadalnay qaboob zaid ma jiro qaboob normal kuleel zaidna ma jiro qabowna ma kuleelna ma dhaxaad waa wadankan roobaana daanta ugu badan waa wadan buura leh waay marka soo waaka insha Allah wixii su'aalo aad qabtiin commentiga igu soo weydiin kartaan insha Allah wax walbo aad fikirkaaga ka soo dhiiban kartaa commentiga naga la soo hadal waxa aad doonaysid wadankan ina laga hadlo kala tusaale waa ka hadalnay wixii kugu kacay markii aad Kampala imaanaysid waa ka soo hadalnay like wax walbo waan soo weydiin kartaan marka waa ka insha Allah inta ka kulmeen muuqaalka waxa aad leeyahay say next video bump kalaat awliya awliya kalmana abahooda